ay sheegeen inay halkaas iyagu dhawaan ka geysteen ama ay tahay halkii ay ka geysteen duqeyntii dhacday 10 cisho ka hor waa meelaha istiraatiijiga ah kooxda ISIS ay isku dayi doonto inay si weyn dabcan position ama goobtan ay u difaacato haddaba taliska ugu weyn ee kooxda halku ku yaala ay lumiso kooxdu waxay noqon doontaa inay soo aado dhanka boqo iyo miraale oo boosaaso kulaalaya bismillaahir rahmaanir rahiim kuna wacan saaxiibayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku falanqeyn doono xaaladda dagaalka ka socda buraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland madaxweynaha dowladda Puntland dhamaadkii sanadkii tagay waxa uu ku dhawaaqay oo si rasmi ah u daafuray howlgalka Hillaac oo uu sheegay inuu yahay mid laga sifeynayo buraha Calmiskaad xubnaha kooxda ISIS oo sanadooyinkii ugu dambeeyay halkaasi saldhigyo waaweyn ka sameystay 26 December ayaa kumanaan kun oo ciidamo ka tirsan kuwa difaaca Puntland la isku geeyay deegaanka Dharjaale oo magaalada Boosaaso dabcan u jira 159 kilomitir Dharjaale oo dabcan halkan dad ka arki kartaan Boosaaso u jira 159 kilomitir waa halka sida rasmiga markii koowaad looga daafuray howlgalka Hillaac 26 December ayuu daafurku ahaa iyo bandhiga ciidamada 31 December ee isla bishiyaasi oo dhamaadkii sanadkii tagay kooxda ISIS waxa ay Dharjaale ka geysteen weerarkii ugu weynaa ee Soomaaliya ay ka geystaan ilaa iyo 12 dagaalyahan oo kooxda ka tirsan ayaa la sheegay in meeshaasi ay ismiidaamin toosa ka sameeyeen iyagoo isku qarxiyay qaarkoodna gaadiid laga soo buuxiyay walxaha qarxa ay goobta la soo galeen markaasi Puntland waxay sheegtay in dhammaan raggii weerarka soo qaaday ay laysay oo ay toogatay weerarkaas kadib maxaa dhacay Puntland isla markiiba waxay howlgelisay ciidamadii iyadoo loo kala diray goobo kala duwan si ay jihada u saaraan meelaha lagu tuhmeeyay inay joogaan ama furimaha iyo fariisimaha u ahayd kooxda ISIS ciidamada sidaan xogta ku helay Dharjaale waxa loo qeybiyay laba madax oo kala duwan madaxa koowaad waxa uu si toos ah u abaaray degmada ama deegaanka Timirshe wuxuu hoos tagaa degmada isku shuban laakiin Baledhidin ayuu waxa uu jira 45 kilomitir oo kaliya ciidamada madaxa koowaad waxa ay tageen Timirshe halka madaxa labaad ee ciidamadaasi ay iyaguna tageen deegaanka Xamure oo u dhaxeeya Timirshe iyo Baledhidin oo Boosaaso Baledhidin waxay u jirtaa 251 kilomitir ciidamada madaxa koowaad ee tagay deegaanka Timirshe waxay isla markiiba saldhig ka dhigteen tuulo dharaar iyagoo oo sii maray weerarano ku sii qaaday fariisimo ay xubnaha ISIS ku lahaayeen toga ileed Conqoro ilaa ay ka gaarayeen Walinsor intaas ciidamadu markay marayeen halkaas waxay ka sameynayeen howlgallo ay ku beegsanayaan xubnaha kooxda ISIS ciidamadaasi waxay gaareen Walinsor aan u soo laabto madaxa labaad ee ciidamada oo ku sugnaa deegaanka Xamure iyaguna si lamida madaxa koowaad ee Timirshe ku sugnaa waxay sameeyeen howlgallo kala duwan waxay howlgalladooda ka bilaabeen dhanka Hoobato ilaa Dhaban Caddo Conqoro iyagoo ugu dambeyn gaaray Walinsor oo uu ka sugayay madaxii koowaad ee ciidamada iyaguna Timirshe ama tuulada ku dhaweyd ee lagu magacaabo tuulo dharaar howlgalka ka bilaabay halkaasi marka la joogo ciidamada ammaanka ee isugu yimi Walinsor waxa ay ka tashadeen ayna dajiyeen istiraatiijiyadii ay sida tooska ugu aadi lahaayeen deegaanka Turmasaale oo kamid ahaa meelihii ay kooxdan dabcan ay haysatay ciidamada dawladdu ee ka qaadeen Baledhidin waa meel istiraatiijig muhiim ah Boosaaso 251 kilomitir ay u jirtaa si Turmasaale aad u gaarto waxa ay ku u baahan tahay inaad marto laba wado midkood oo ku yaala degmada Baledhidin labada wadaba Baledhidin waxay ka maraan qorax dhac iyo qorax ka soo bax mid kamid ah waa wadada halbowlaha ah ee ka timaada Boosaaso ilaa gasha Qandala oo jecel u sii leexata midna waa wado kale oo dadka deegaanku ay sameeyeen taasi oo marta dhanka qorax dhac ee degmada Baledhidin si awgeed ciidamada ammaanka ee difaaca Puntland waxa ay isla markiiba ka howlgaleen sidii deegaanka Turmasaale ay ku gaari lahaayeen wada ahaan waxay adeegsadeen inay maraan wadada qorax dhaca ee dadka deegaanku ay sameeyeen oo dabcan aan ahayn wadadii kale halbuulaha ee weyneed Turmasaale ciidamada ammaanku waxay ka soo galeen laba jiho jiha waxa la yiraahdaa Janajiifta ay ka soo mareen saldhigyo badan oo
ciidamada ISIS ama xoogaga ISIS ay halkaasi ku lahaayeen ayay burburiyeen iyagoo halkaasi xubno kamid ah kooxahaasi ku laayay ciidan kale waxay ka soo galeen madaxii labaad ee ciidamadu waxay ka soo galeen Inacidoode dhanka toga Inacidoode sidaas awgeed Turmasaale waxa si rasmi ah ula wareegay gacan ku haynteeda ciidamada ka soo galay dhanka Janna Jiifta oo ahaa ciidamadii u soo horeeyay Turmasaale halkaas ciidamadu waxay ka dhigteen base Turmasaale waxay ahayd meel istaraatiiji ah kooxda ISIS marka laga yimaado ama marka dabcan loo fiiriyo wadooyinka marayay iyo inay u ahayd halka logistigadu ay u mari jirtay marka laga yimaado ama uga yimaadaan magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga Puntland inta ciidanku Turmasaale ku sugnaa waxa dhacay laba dagaal oo waaweyn oo khasaare aad u xoogan ay Puntland sheegtay inay gaarsiisay kooxda ISIS labada dagaal xagee ka dhaceen labada dagaal aan ku bilowno dagaalkii dhacay 4tii bishii February ayna hadda ku guda jirnay waxa uu ka dhacay meel halkan oo ah tugagan oo ah aaga Turmasaale dagaalkaasi waxa uu ka bilowday Tuulo Naxar ilaa la isla gaaray Dhariin oo ciidamadu ay markii halkaasi dagaalku ka dhacay ay fariisimo ka sameysteen ciidamadu markaasi waxay sheegeen in dagaalkaasi ay ku dileen xubno kor u dhaafaya 70 oo ka tirsan kooxda ISIS iyadoo sidoo kale sheegeen in fariisimo cusub ay ciidamadu Dhariin ka sameysteen halkaas ciidamadu hawlgallo kale oo miinooyinka lagu saarayo ayay ka sameeyeen meeshaan ka hadlayahay waa deegaanada ku dhow Turmasaale ee lagu magacaabo ama Tuulo Naxar ilaa Dhariin oo dagaalku uu gaaray markaasi dagaalkii labaad waxa uu dhacay 11kii February waxa uu markaasi ka dhacay Haraariyooyin markaan leeyahay halkaas waxa ka jira laba Haraariyo la yiraahdo Haraariyo 1 iyo Haraariyo 2 aan isku qaadno deegaanka aaga Haraariyooyin ay ka dhacay 11kii February ay markaasi ahayd xilliga dagaalku uu dhacayay oo Haraariyo waxa ay ka sokaysaa u dhaxaysaa Turmasaale iyo Qurac waxa ayna ka sokaysaa deegaanka Qurac oo Mareykanku ay sheegeen inay halkaas iyagu dhawaan ka geysteen ama ay tahay halkii ay ka geysteen duqeyntii dhacday 10 cisho ka hor iyadoo markii ugu horeysay Mareykanku uu sheegay halkaas ama deegaanka Qurac oo aan ka hadlayo uu ku dilay 12 xubnood oo uu ku jiro madaxii kooxda u qaabilsanaa hawlgallada dibadda iyo qorista dagaalyahanada ajaanibta ah ee Soomaaliya dibadda uga imaanaya saawgeed meesha Haraariyooyin ee dagaaladu ka dhaceen waxa ay ka sokaysaa Qurac ciidamadu waxay ka hortageen gaadiid laga soo buuxshay waxyaabaha qarxa oo aad hadii ay halkaas ama bartilmaameedkooda gaari lahaayeen la sheegay in khasaaruhu intii ciidamada gaartay uu ka badnaan lahaa dagaalada culus ay sheegtay iyadoo Puntland ay sheegtay ku dhawaad 100 dagaalyahan in halkaasi ay ku dishay ay fashilisay qaraxyadii qawaarida laga soo buuxshay iyo waliba mootooyinka barta Telegramka ay ku soo bandhigeen meydadka xubno ka tirsan kooxda ISIS oo ahaa kuwa hawlgalkaasi ee kooxda ISIS ay u soo dirtay ciidamada dawladdu haatan waxay ku sugan yihiin deegaanka Qurac oo ku dhow deegaanka Turmasaale dabcan oo ah meelaha fariisimaha u ah haddaba waxa su'aal isweydiin mudan ah halkee ay joogaan xubnaha kooxda ISIS iyo dagaalyahanadoodu waa sameelaha iyo deegaanadii halka ay ku hareen maxaa dhacaya hadii meelaha hadda ay ku sugan yihiin lagala wareego istaraatiijig ahaan waxay ku sugan yihiin xubnaha iyo dagaalyahanada kooxda ISIS deegaanada kala ah Daray Madow Kayaxa Gaatir Oodan Sheebaab sidoo kale waxay joogaan daxooyinka Dhasaan iyo Dhaadar goobahaas waxay iskugu jiraan aan tiriyay goobo buuro iyo togag ah sidoo kale waxay isugu jiraan iyagana jira meelo daxooyin ah meelaha sida weyn la filayo in dagaalada ugu adag asbuucyada soo socda ciidamada ammaanka iyo kooxda ISIS ay dabcan ku dhaxmari doonaan waxa kamid ah tog weyn oo u dhaxaya Daray Madow iyo Gaatir Oodan oo la yiraahdo Toga Curaar dhanka Daray Madow ayuna dabcan togana xiga waa meelaha istaraatiijiga ah kooxda ISIS ay isku day doonto inay si weyn dabcan position ama goobtan ay u difaacato sababtu waa inay ka difaacanayso dhufaysadeeda xiga ay ku sugan yihiin xubnaha mas'uuliyiinta xitaa waa kooxdan sida xogaha ammaanku ay sheegayaan Toga Curaar ee aan ka hadlayo waxa uu ku darsamaa Toga Miraale oo isna Kambaalade ku soo daro Boosaaso halkaasi ka soo gala waxaana la filayaa in halkaasi dagaal xooggan ay ka dhacaan haddaba taliska ugu weyn ee kooxda halku ku yaala Sheebaab waxa suurtagal ah inaad maqashay deegaanka Sheebaab waxaana bishan oo kaliya Sheebaab loogu geystay ama ka dhacay 2 duqeymood kii ugu dambeeyay
11kii bishan ay dowladdu sheegtay in halkaasi lagu duqeeyay xubnaha kooxda oo ayna ku dishay 30 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada waxay dowladdu raacisay inay gubtay gaadiid ay u isticmaali lahaayeen qaraxyo iyo sidoo kale ay u isticmaalayeen logistic transportation ahaan waxa xusid mudan xoga amnina ay warbaahinta Sahal Cable ku heshay in kooxdan ay haysato gaadiid ilaa 10 gaaraya qaarkoodna ay saaran yihiin gaadiidka ama qoryaha gaadiidka laga rido dushooda lagu dagaalamo dowladda iyo laamaha ammaanka ayaana xogtaasi dabcan ka soo xiganay shabaab waxa ku yaala saldhigga ugu weyn ee kooxdan waxaana lagu magacaabaa Casaaso waa goobo difaaciyo rabbaani ay ku yaalaan godad waaweyn ay ku yaalaan sidoo kale waa goob biyuhu ay kheyraadka biyuhu aad ugu badan yihiin kooxdan waxay isku dayi doontaa halkaasi inay si weyn u ilaashato istiraatiijig ahaan goobtaasi waxaa muhiimadeeda ku cadeynaya waa meelaha ay ka difaacayaan toga curaar sidoo kale waa meesha bishan oo kaliya ay ka dhacday 2 duqeymood oo kala duwan oo dowladdu sheegtay in sidameeyo kooxda ka tirsan ay ku dishay gabagabadii maxaa dhacaya haddii kooxdani ay lumiso deegaanadan muhiimka u ah ay ka mid tahay shabaab dhaadaar iyo waliba deegaanada kale aan hadaaye soo sheegay ee ka mid yihiin daray madow gaatir oo dhan goobahan waa goobo istiraatiijiga kooxdan waxay isku dayi doontaa inay u difaacato heerka ugu sareeya ee awoodeeda iyadoo adeegsanaysa sababtuna waa goobaha dhulka ribaaniga ee difaacu ka samaysan yahay ee ku yaala haddii marka kooxdani ay lumiso goobahan kooxdu waxaa dagaalku horta la isla tegi doonaa goobo ban ah oo dooxooyin ah oo aan ahayn meelaha hadda lagu dagaalamayo ee buuraha godadka iyo qararka iyo togo gabale ee xaaladeeda dagaalka dadka falanqeeya dagaalada ay sheegeen inay tahay goobo aad u adag dooxooyinka haddii la isla tago kooxda ISIS ma doonayso in halkaasi la isku soo gaaro sababtoo ah dagaalka dooxooyinka waliba waxaa xusid mudan shabaab iyo dhulka ku aadan 8 bilood oo xiriir waxa ka socday dagaalo u dhaxeeya kooxda ISIS iyo kooxda shabaab toga haday aan ka hadlayay curaar ahaana ilaa dhowr ismidaamin oo kala duwan ay kooxda ISIS kooxda shabaab xilligaasi ugu geysatay saawgeed meelahan kooxdu muhiim bay u aragtaa haddii marka ay lumiso kooxdu waxay noqon doontaa inay soo aado dhanka boqo iyo miraale oo boosaaso kulaalaya juqraafi ahaan dib hadaynu eegno gooba hadda lagu dagaalamayo 100 kilomitir ka yar waxay u jiraan boosaaso marka laga fiiriyo dhanka buuraha biyo kulule oo dabcan ay aad u kulaalayso magaalada boosaaso saawgeed kooxdu waxay isku dayi doonaa in dhanka boosaaso ay soo aadaan iyadoo aan ognahay in ciidamada dawladda ay ku sugan yihiin xarumo kala duwan oo kamid ah buuraha ku hareeraysan magaalada ganacsiga